taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeya guute Cabdullaahi Fadal Imaan oo wareysi kooban siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland oo kaashanaya shacabka Soomaaliland ay si weyn ugu diyaar garoobeen munaasabadda 18 May maalinta goonistaagga Soomaaliland oo ka soo wareegtay muddo 22 sanadood. taliya Fadal waxa uu sheegay in cirka dhulka badda ay ciidamada booliska Soomaaliland joogaan oo ay baari doonaan ammaanka Soomaaliland si munaasabadaasi u dhacdo munaasabadii ugu weyneed. taliye oo faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri raacadaynaya in ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland uu si weyn oo culus ugu diyaar garoobay isagoo Ilaahay la kaashanaya marka koobaad marka labaadna dadweynihiisa reer Soomaaliland la kaashanaya wanaagsan aad iyo aad haddaan dib ugu noqdo ciidanka booliska waxaa la aasaasay 1993 ilaa inta maalinta ka dambaysa waxba uu soo kordhayay haday dhinac ka satay waxaan ku sheegayaa in aad iyo aad waxaanu sameynay telefoon online ah oo dadweynuhu la soo xiriiri doonaan oo aan wasaaradda u gudbinay oo loo faafin doono xaaladda amnigana aad iyo aad dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa diyaar buu ciidanku yahay waxaanu leenahay Ilaahay haynugu gaarsiiyo nabadqabna haynoogu dhameeyo si aad iyo aad anagoo bulshada reer Soomaaliland la kaashanayna ayaan ugu diyaar garoonay kullay bariyahan ugu dambeeyay magaalooyinka waaweyn waa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ciidanka booliska ama hay'adaha ammaanka ay gacan saar ka leeyihiin ciidanka booliska aad iyo aad ayaan hawsha ugu diyaar garoonay haday tay xag marista xoojinta qaranimada Soomaaliland oo ciidamada qalabka sida maraya uu ka mid noqon doono haday tahay xagga ilaalinta nabadgelyada aad iyo aad ayaan ugu diyaar garoonay waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa inuu guul iyo nabadqab nagu gaarsiiyo guul iyo nabadqabna inoogu dhameeyo intaas ayaan sheegayaa kullay hadiya jeer waxa weeye dambigu waa ka hortagay ka daba tag marka booliisku marka hadiya goor amniga sugayaan action soo qaadaa iyagoo markastana ilaalinaya wixii waajib ay noogu leeyahay dadweynuhu marka waxa batuuleedo la kordhiyay waxa kamid ah gaafureegaas oo la kordhiyay waxa kamid ah maxaan ku raraa baaris soo la adkeeyay insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynayaa in aad iyo aad ay wasoo bixi doonaan hawsha dhamaana waxa ka amriyeen ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland inay heegan ugu sareeya la siiyay oo si xoojiyaan oo adkeeyaan goob kasta haday tay madaarada haday tay dekadaha haday tay maxaan ku raraa dhulka iyo meel kasta oo cadawga Soomaaliland ka soo gali karo gudo iyo dabadba waa u feejigin Ilaahay baan u tala saaranaa aad iyo aad ayaan ugu rajaynahay inuu Ilaahay guul noogu